soddon sano saxaafadda ka hadlay maan caayo وهاجاك داوديال وقت حاضر كان وحاين دينعيغا ميدك كسوغان خلدبان عبد القادر اندو كتيرسان مدنياشا غolaha guurta Soomaaliland xildhibaan ugu horeyn soo dhawow maalinta shalay dhacday bal bulshada u iftiimay dhacdadaas adiga iyo suxufigaada dhex muneew horta dee waan bayaabanahay oo imka noocan ay wax u dhigayaan sidan ay wax leeyihiin si cidiba golayaal tagi kara soo shaqeynaysa ma aanu soo noqdatan inan kan meesha lugeynay golaha fasax waa shirgudoonka ka yimi bilaa iidaan la fasaxay war ma hayo war anoo lugeynay igu bilaabay waxan isagoo bahashan oo kala sita imikana waxay keenay qof aan aamusahaynba oo bee sheegay anigu maxkamadda uu sheegayo ayaan horta hadalka xoogeeda la sugay limbaan sugay intaana ma aamusnaadin waa mulkiilihii alfaar xarbi galabta mar dhaweed baan sameeyay waa personal wax isaga u gaarabo personal noqon mayso horta kamaradiisii iyo tan aanan arkayn beede ogolaansho la'aanta lagu baragsar garaynayo marka dhowr goor biina ku kalalkay qabsaday oo gashkoorkay qabsaday ninaan isku ogeyn war baan ku siinaya inuu maanta ilaa ogolaansho lahaa wax ogolaansho oo iga qaaday ma jirto waa xafiiskayga dhexdiisa halkii baa aniga niman badan oo igu raali geliyay dad baa joogay diin baanan caayin soddon sano saxaafadda ka hadlay maan caayo waxaan ku yidhi hooyadaayo weydiintaadaba wasa naga tag markii dambe kamaradna anigu ma arkayo wixii uu kamaradani hadday intii aanu murmayna oo dhan wuu jaray halkan wuu jaray walaa diin baan caayay walaa waanan ogolaanaynin anaa maanta toos u geeyay maxkamadda isagoo iska ciyaaraya waxaan sugayay qalabkaa uu igu weeraray ee uu la dagaalamay in aan ninkii lahaa oo aan saaxiib nahay ka afqaado isagiina wuxuu igu yidhi arrintaasi isagay gaar u tahay arrin gaar uu kamarada u leeyayna ilamo imana bulsho ayaa bahashaan xitaa iska qabanayo waa blackmailing waa qiimo rabidis golaha la maagayo waa wanjal waxaasoo dhan anuu maxkamadda la sugayay blackmailingka intaan leeg ee lagu samaynayo dadka isaga ka jawaabay hadhow waxa uu ilaa shalay daadinayay yaa la waayin xildhibaan waxa uu sheegay in waraysiga markii uu ku weydiistay aad ka ogolaatay arrintaasi ma jirtaa ma jirto waa beenti waabu kalar ku haystaa bil khasab igu waran buu leeyahay miyaad khasbaysaa bal intuu maka sii daayeen wax ogolaanshaa wax isu imaatina waxaan la ballamay waxna dhex maray war ma haya iga tag baan leeyahay oo abaaragtay kuu warrami maayda anigu ninaan ogolaansho siiyey dee maastan u dulqaateen kuwaan laybaa laaleego aan gaar ka haya ilaa xalay waxa wado hadduu aamusi waayo maxkamadda uu sugi waayo wallaahi gacantayda wax kaga qabanaya oo balaayada uu faafinayo ma garatay dacwad hadduu sheeganayo anigu waan geeya isna ha geysto yaa la waayo wuxuu sheegay waxa taagnaa mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada sidoo kale dad shacab meesha taagnaa hadii baa cadaato in kelmadaasi maxay tahay diin tahay maxaad waajib lagu marin karaa adeer gacantu i qabsanaya marka uu dambayso weeye waxli uu leeyahay waxbaan ku weydiinay anu macyaala suuq baanay xildhibaan baanay warida warmahay wariga tag markuu koorkay qabsaday baan daan iska riday oo hooyada ay weydiintaadaba was maxaa iga doonaysaa ma garatay aniga way hadduu jaray diinta uu soo qaadanayo almiidaan waasa ha cadeeyo wuxuu sheegayo anigu waan cadaynayaa fiidiyowgana keligii buu qaatay waana tuugo inuu kamarad igu hayaba ma moodayo anigu waa blackmail labaad inuu hadalladii jarjaraa waa blackmail labaad inuu ilaa ogolaansho siiyo waa blackmail inuu sharaftayda iyo karaamadda iyo golaha iyo taqarankaba ku ciyaaro waa ku talagal waan ka raali gelinayaa waxa xun ee ay aan oran anigu laakiin wixii runta ahaa haddaan gelayaa ee wariyaynu yahay anigu waan aqaan ma garatay dee haddaanan war hayna miyuu khasbaya bil khasab igu waran buu leeyahay
أنا ما لا خصبة أنا كوي منك سما وحن قاعدين واي تلفون كده قفل يلي هاي وأروح أنا معايا هاي أنت أنا واحد سوي على فارح حربينا أنا قلبتنا وأنا هذا اللي السجى كلي ما هي ولي قلبكي يوحي يقول دقالمي أنا الدين ما يو هاي